laanta socdaalka gaar ahaan qaybteeda la dagaalanka dadka aan sharciyada haysan oo ay kaabayaan ciidamada booliiska ee Zambia ayaa saaka waxay howlgallo qabqabasho ka sameysay mid ka mid ah xaafadaha Soomaalidu ka degan tahay magaalada caasimadda oo ah Zambia ee Lusaka inta lahbo waxaa laga qabqabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Jaayisa dad kor u dhaafaya 30 qof oo Soomaaliya kuwaasi oo la geeyay xabsiyo kala duwan oo ku yaala caasimadda Lusaka dadka saaka la qabqabtay waxaa ku jira kuwa haysta kaararka aqoonsiga qaxootiga ay bixiso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR sidoo kale waxaa ku jira dad iyaguna haysta sharciyada deganaanshaha iyo waliba sharciyada shaqada ee wadanka Zambia intii aysan ciidamada gudaha u soo galin xaafadda Soomaalida ayaa waxaa goob ay ka socotay xaflad ballaaran dadweyne Soomaaliyeed oo fara badan kula hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia isagoo dadkii goobta joogayna u sheegay in dawladda Zambia gaar ahaan wasaaraddeeda arrimaha guduhu ay ku wargelisay jaaliyadda in dawladdu ay qabqaban doonto dadka aan sharciyada lahayn sidaa darteedna ay ku wargeliyaan dadkooda wuxuuna gudoomiyuhu dadkii goobta joogay ugu baaqay inay arrintan feejignaan gaar ah ka yeeshaan balse intii uu socday hadalka gudoomiyuhu waxaa soo buux dhaafiyay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Jaayisa saraakiil ka socota laanta socdaalka oo ay kaabayaan ciidamo booliis oo hubaysan kuwaasi oo wata gawaarida dadka lagu daadgureeyo haddaba waxaa TV-ga Universal u suura gashay inuu xog waraysi la yeesho gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia isagoo si weyn uga warbixinaya xaaladihii kala duwan ee ay soo martay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo waliba xaaladda dhabta ee hadda ka jirta Zambia sidoo kale wuxuu gudoomiyuhu codsi u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoo ugu baaqay inay arrintan wax ka qabato waxaanu doonaynaa dawladdu inay la hadasho dawlad la hadashay jaaliyadii waxa uu hoose ma ahay wax kale kama ay hadli karto marka waxaanu ka rajaynaynaa dawladda inay dawladana naga hadasho oo ay tiraahdo dadkaas hayto meesha aad degan hadee ilaan Hellran Road dadkii ku soo gurmaday waqtigii aad na weydiisatay dad noo soo gurmada ka uu waqtigiisii u weydiisay Soomaaliya baanu ku nimid halkaaneed waanu u sheegnay marka dadka Soomaaliyeed tiradeeda inaan wali aanan tira koobin laakiin tiradeeda markaan hadda sheegno qiyaastoodu waxay yihiin ilaa 500 oo kun qof ayaa Zambia degan oo intooda badan ganacsadayaal ah anagu ilaa intii dawladda Soomaaliya burburtay safaarad baan noo joogtay safaaraddeedaas waanu aad baan ugu ladnayn annaguna waa taquleen jirnay safaaraddeeda waana ilaalin jirnay muddo dhow adigu 3 sano hadda laga joogo ayaa safiirkii naga dhintay safiir kale noo keenay waxaanu marka ka codsanaynaa dawladda wadankan ilaa 1974 iyo 1973 ilaa maanta safiir ma waayin waxaana hadda nagu maqaalo ah safaaradihii in la yareynayo safaaradihii la yareynayo waxaana loogu daray baa lagu yiri safaaradda Zambia waa lagu daray safaaradda Zambia marka waxay isku haysaa wadamo badan oo aan jiraan lanahay weligeed yaaleed wadanka horta 500 kun qof baa joogta Malawi waa la joogaa Mozambique waa la joogaa Zimbabwe waa la joogaa Angola waa la joogaa Congo waa naga sii daran tahay waa meesha dhaqaalaha Zambia oo dhan ka yimaado Soomaaliduna waa degan tahay 500 markaan halka ku sheegay xaggaasna ilaa 200 baa degan iyo ka sii badan Tanzania xuduud la leenahay marka wadamadaas oo dhan bay isku xiri jirtay oo waliba responsible ka tahay haddana waxaan u maleynayaa haddii South Africana ay la geyn safiir ilaa South Africa inay ka noqonayso wakiil marka sidaa daraadeed inaan safaaradiyada aan laga xirin muddo badan baa la soo jiitameynay gurigeygii waa noo dhisan yahay institutionkii dawladdu ay lahayd oo dhan sideedii bay u yaalin ha burburiyaan laakiin maanta haddii loo yimaado safiirkii maalintii qalankii lagu ogaa xafiisku dhex yaala baabuurkii isagoo qolof meesha yaala marka sidaa daraadeed taasna in lagu taxgiiriyaan doonaynaa oo aan safaaradina laga xirin sidoo kale waxa iyaguna dareenkooda ku aadan xaaladan cusub ee soo food saartay Soomaalida ku nool wadanka Zambia ka warbixinaya qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee xoogsatada ah ee qaarkood saaka ka badbaaday raafka ay sameeyeen ciidamada booliiska ee wadanka Zambia halkaas oo ay ka kaxaysteen dad shacab ah oo bilaa sharci ah oo isugu jira dad waaweyn dhalinyaro iyo odayaal marka waxaan aad u codsanaynaa haddaan nahay shacabka ku dhaqan Zambia in dawladda Soomaaliya
ay aad iyo aad nooga warqabto. waxaa awalna loo ka gaban jiray kaararka qaxootiga haatan xitaa waxaa laga qabanayaa dadkii kaararka qaxootiga lahaa oo aan looga gabanaynin waxa ay wateen oo qaxootinimada ah oo ay waddanka ku joogeen horeyna loo siiyey ayadoo haddana xabsiyada la dhigay lana tarxiilayo oo loo tarxiilayo waddankoodii meel aan ahayn ee la geynayo xadka u dhaxeeya Tanzania iyo Zambia. dowladda Soomaaliya waxay ka baxday gumeel gaarnimadii hadda waxay ku jirtaa xilligii aan u baahnayn oo waddankeeda inay iyo dadkeeda ay ka warqabto marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay arrimahan wax ka qabato dadka Soomaaliyeed shacabka oo la qabanayo maalin walba oo ay muujiso inay dowlad la siman tahay dowladaha adduunka oo Zambia oo kala ah. qabqabashada iyo raafka loo geystay dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Zambia ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maanta muddo bil ay ka soo wareegatay markii ninka Soomaaliga ah uu dilka u geystay ninka Zambiyaanka ah Saciid Muuse Daahir TV-ga Universal caasimadda waddanka Zambia.